qisadani waa qiso aad iyo aad u xanuun badan waxaana ciwaan looga dhigay adeerkay ayaa i dhalay. Haddaba dhegayste muuqaalka dhammayso wixii falcelinana kommentiga ku soo qor. Waxaan ku noolahay magaalooyinka Soomaaliya mid ka mid ah, laakiin qisadaydu waxay ka soo bilaabatay magaalada Muqdisho. Waxaan ahay qoys ballaaran oo 10 carruur ah iyo hooyo iyo aabbo. Cunugga shanaad ayaan ahaa. Aabbahay Ameerika ayuu joogay, sanad walbana wuu imaan jiray. Sidoo kale xaafadda aan deganayn waxaa deganaa adeeraday oo ahaa kuwa aad u fara badan iyo awowaba. Ilaa ku dhowaad 10 guri oo xaafaddaas ku yaalay reer aabbahay ayaa deganaa. Reer badan ayaan ahayn sidoo kale, isla familkaygu way badnaayeen. Waxaa dhacday markaan dugsiga quraanka dhammeeyay ayaan mar walba waxaan arki jiray hooyo oo ay u imaanayaan abtiyaaladay iyo ayeeyo iyo awowe oo ay sasabayaan, iyaduna ay leedahay waxaan rabaa Ameerika. Mararka qaar waxaan arki jiray guriga iyada oo ka baxaysa oo caraysan, laakiin aniga waxaas dhib iguma hayn, waayo waxaan ahaa gabar yar oo ciyaar badan oo carruuraha xaafadda iska ciyaari jirtay. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah ayaan maqlay iyadoo la leeyahay waa la guurayaa, aabbihiin ayaa idinka xaynaya, Kenya ayaan imaanay. Borosayskii ayaa muddo socday. Safaaradda waan galnay, kadib ayaa la yidhi DNA ayaa la iska qaadayaa, laakiin tijaabadii markay soo baxday waxay noqotay arrin qaadawaa ah iyo la yaab. Aabbahay inuusan i dhalin ayaa soo baxday. Mar labaad ayaa lagu celiyey isla sidii, ilaa mar saddexaad waa sidoo kale. Carruurtii kale waa isku mid, aniga ayaa ka duwan. Arrinkii wuu weynaaday, dagaal iyo buuq ayuu isku bedelay. Soomaaliya ayaa naloo soo celiyey. Hooyaday ayaa lagu yidhi yaa dhalay sheeg cunugtan. Waxay ku adkaysatay inuu isagu dhalay. Wax walba haddii lagu sameeyey way diideen arrinkii. Wuu sii weynaaday faxshirkii iyo caybta hooyaday waana lagu furay. Aabe carruurtii kale wuu reebtay, anigana wuu soo ceyriyey. Hooyaday ayaan soo raacay, guriga ayeeyo ayaan imid. Odayaal ayaa isku yimid, arrinkii ayaa laga gogol dhigtay. Hooyaday waa la weydiiyey markii ugu dambaysay iyadoo kitaabka gacanta loo saaray. Waxay tidhi waxaa dhalay Hebel oo ahaa aniga adeerkay. Aabbahay istaag ayuu ka dhacay sababtoo ah adeerkaas gurigeenna ayuu ku soo koray, waxna ku soo baran jiray ilaa heer jaamacadeed. Adeerkii ayaa la weydiiyey, wuu inkiray. Waa la qabtay, Kenya ayaa la geeyey. Aniga iyo asaga iyo dhowr adeeraday ah ayaa israacnay. DNA ayaa laga soo qaaday, waana is yeelannay oo asaga ayaa i dhalay. Markaan soo laabannay, adeeraday waxay rabeen aniga iyo hooyaday inayna dilaan. Awowe iyo aabe ayaa naga qabtay. Hooyo meel walba waa laga soo ceyriyey, laakiin aniga ma aqaan sababta qaladad kale ay galeen aan u marayo ciqaabtiisa. Guriga ayeeyo ayaan ku noolaa muddo ilaa 4 bilood ah. Abtiyaaladay way i caayi jireen, deriskuna aniga ayay ii soo daawasho tegi jireen ayagoo dhahaya gabadhani ma gabadhii wacasha aheed ah. Culays aanan qaadi karin ayaa maskaxdayda iga koray. Kadib habeenada ka mid ah, gabar yar oo abtigay dhalay oo guriga ayeeyo ku nooleed ayaan wax isku qabsannay. Way oyday oo waxay tiri way i dishay. Habeennimo 5 saac ah ayaa bannaanka la ii soo saaray intuu abtigay soo garaacay. Boorsadaydana la ii soo tuuray. Boorso ma lahayne, yaanan boorso dhihine, bac yar oo ay dharka iigu jireen ayuu ahaa. Meel aan aado ma aqaan. Deris ii dhowaa ayaa buuqa ku soo baxay oo aan habeenkii gurigooda ku baryay. Subaxii markay noqotay ayaan idhi waan baxayaa. Way diiday maamadii, kadib waxay i tiri shaqo ayaan ku geyn, ma shaqaysan. Waayahay ayaan idhi xaafad ayay i geysay. Xaafaddii naagta joogta waxay noqotay naag i disha, qaylo badan, yacaysa. Guriga waxaa ku noolaa wiilal qaraabada ah. Maalin maalmaha ka mid ah reerka aroos ayay aadeen, laakiin wiilasha kubad ayay jireen. Galbihii ayay yimaadeen, waxay arkeen guriga inuu cidlo yahay. Afka ayay i qabteen, wayna i kufsadeen afartiiba. Xitaa ma qaan gaarin. Wiilashana wiilal waaweyn ayay ahaayeen, 20 sano kor u dhaafay. Meeshaydii anoo jiifa, markay reerkii imaadeen, maamadii ayaa aragtay dhiiggaygii anoo dhex jiifa oo aan dhaqaaqi karin. Ul ayay soo qaadatay, way i garaacday, laakiin xitaa hadday mindi soo qaadan lahayd ma dhaqaaqeen, sababtoo ah mar labaad ayaan dhintay. Markii dambe ayay tiri gurigan kaa saarayaa, haddii kale ka kac. Waan isdhibay. Waxaan dhahay wiilasha ayaa sidaan ii galay. Wiilashii markay i kufsadeen kadib way baxeen si hadhow u dhahaan waan maqnayn. Kadib ayay isii garaacday. Car waxaas lagaa maqlo beenley ayaa tahay. Kaniini ayaa lay siiyey. Sidii ayaan muddo isaga xanuunsanaa. Kadib waan iska roonaaday. Waxaan go'aansaday inaan meeshaan dhan iskaga tago. Lacagta bisha aan qaato waxay ahayd $15 bas. $15 xaggee i geysaa? Aniga waan fikiray. Kadib lacag guriga taallay ayaan xaday. Waan soo baxsaday. Hadda magaalooyinka Soomaalida mid ka mid ah ayaan tegey. Sidoo kale walaalahayga dhammaantood Ameerika ayay galeen oo sawiraantooda ayaan ku arkay Facebook. Waan raadiyey, laakiin wax ii naxariista waan ka waayey. Hal wiil ayaa iigu roonaa oo ilaa 6 bilood lacag ii soo diri jiray si qarsoodi ah. Isagiina waa laygu diray wuuna i jaray. Hooyaday
meel u dambaysay ma aqaan laakiin aniga waxaan qalad leeyahay oo reer aabbahay sidaas igu galeen magac qurux badan ayaan lahaa laakiin magacaygu wuxuu isu beddelay wicesha magaalada hadda aan ku noolahay magac cusub ayaan ku joogaa oo aan aniga la baxay dadkana waxaan uga sheekeeyaa reerkayga Kenya ayay jiraan waalidkaygana way dhinteen runtii qisadani waa qiso aad iyo aad u xanuun badan halkaa ayaana lagu soo ekeeyey qormadeeda waxaana leeyahay gabadha Soomaaliyeed waxaa loo dulmiyey si bini'aadanada ka baxsan mana aysan ahayn qalad iyadu aysan gelin in loo ciqaabo waxaana rajaynayaa gabadha inay cadaalad hesho adinkana waxaan ka rajaynayaa muuqaalka inaad like garaysaan channelkana subscribe saartaan dhammaantiin saaxiibayaal